naadiga akhriska iyo qorista ee Berbera Readers and Writers Club ayaa habeennimadii xalay ahayd munaasabad ballaaran u qabtay daafurka labada buug ee Baadidoon iyo Beerta Qoyska oo ay kala qoreen laba qoraa oo reer Somaliland ah isla markaana hablaha farakutiriska ay kamid ah qoraayada reer Somaliland kana soo jeeda caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa waxa munaasabadan xalay ka soo qayb galay maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin Maariya ama shidaalka Berbera Sheekh Salebaan Siciid Cali qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera iyo bulshooyinka kala duwan ay ku dhaqan magaalada Berbera waxaana ugu horeyntii munaasabadani ka hadlay isla markaana qoraayadani ku soo dhaweeyay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qorista ee Berbera Readers and Writers Club Maxamuud Jaamac Dhagaweyne Baadidoon iyo Beerta Qoyska Muuna Axmed Nada Yuusuf Cumar iyo Muuna Axmed Cumar waxaan jecelahay marka hore in labadooduba ku soo dhaweeyno sacad Nada Yuusuf Cumar iyo Muuna Axmed Cumar waa labada qoraa ee kala qoray buugaagtani Baadidoon iyo Beerta Qoyska iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa bulshada reer Berbera u sharaxay waxyaabaha ku kalifay buugan iyo qisooyinka uu ku saabsan yahay in yar waxaan ka oran doonaa buuga iyo waxa gudaha kaga jira ayaan idin sharxi doonaa runtii buuga Hargeysa ayaa lagu soo bandhigay dad akhriyayna way joogeen oo dadkaas aaba hawsha badankeygii iga furtay oo habeenka dadkii akhriyay baa joogay oo wax ka yiri laakiin caawa malaha mas'uuliyad badan bay saaran oo ana intiiba la iga rabaa intii Ilaahay iga qadaray ayaan idin ka oran doonaa buuga sida aad arkaysaan magaciisa waxa la yiraahdaa Baadidoon waxaan horta ugu horeyn idin sharaxayaa magaca marka labaad waxaan idin sharaxayaa jaldiga buuga ninka ku sawiran iyo waxa gudaha ku jira intaba waa isku keen raacinaya magaca Baadidoon dadku waxay weydiiyaan maxaad buuga Baadidoon ugu bixisay runtii buugu wuxuu ka kooban yahay sheekooyin gaaban sheekooyinkaasi waxay ku tacalluqaan arrimo bulsho dhammaantood sheekooyinku sida ay badan waxay baadi goobayaan nolol qurux badan bay baadi goobayaan xuquuq bay baadi goobayaan waxay baadi goobayaan horumar sidaas darteed ayaa lagu bixiyay buuga Baadidoon aqoonta kuma xidhnaa ma guursanin wax kasta waxay ku xidhan yihiin tarka kasbato ala kulli xaal waxaan uga dan leeyahay inaynu xildhibaanka wanaagsan helno inatuna ay raaliyo noqoto haddii la rabo inaynu qoyska beerano haddaba su'aashu waxay tahay qoyskana soo beeranayna Soomaalinimadeena sidaynu u dhowraa Soomaaliland sidee aqoonsi u heshaa sidaas awga su'aalaha san isweydiiyay marka la isweydiiyo waxaan nidhi oo heer si Soomaaliland loo aqoonsado ma barbaartan xaggan ka martaayo inama fiican iyo hablo fiican oo dhalinyaro horumartay baad ka qortaa wax sana loo horumara ma odayaasha maqaaxiyaha raamsanaya wuxuu ruugaya baata warqaadka iska daaya halka ka tahda ma islaamaha sheekadii xantu kooda ka saartay baad u sheekaysataa walaalaha xantu waa xaaraan Ilaahay wuxuu ya ma waxa satrada sina caalamka markaan koona kasta waday waxay guuti noqotay su'aasha joogtada waxay noqotay maya intaba isku daro uu kulmiyo intaba la hadlo qoys ka sheekay maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isaguna gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay qoraayadani sida ay u soo ajiibeen martiqaadkii ay u fidiyeen naadiga akhriska iyo qorista ee Berbera Readers and Writers Club kaasi oo ahaa inay magaalada Berbera ku daafuraan labadani buug ee Baadidoon iyo Beerta Qoyska waxaan ku dardaarmayaa aan leeyahay labada hawlada dabarkayga jooga waxay caawa nagu hor fadhiyaan waa aqoon baa garansiisay aqoon cilmi baa garansiiyey buugan qoraan inay maskaxda macnaan iyo maskaxda tuujiyaan inay hindisaan hore socdaan Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.